kuna wanaagsan daawadayaal guddigiinba oo mar kale iyo barnaamijkeennii hodolnimada afkeenna waana barnaamijkii 9aad waxaynu ku soo qaadaynaa barnaamijkeennan sida uu afka Soomaaligu isu macneeyo ee uu kaga duwan yahay luqadaha kale dhammaantood magacyo badan oo dhulku leeyahay ama dhirta ama deegaanka ama xoolaha ama dadka ayaa kolka la sheegaba macnahooda la isla garanaya oo af ismacneeya dhulka balan ku horeyno kala baydh haddii aan soo qaadano oo magaalooyin badan oo Soomaaliyeed loo yaqaano waxay tilmaamaysaa inay ku kala baydhaan wadooyin fara badan oo kala gedisan oo dhowr jiho u kala socda sidaas oo kale haddii la yidhaahdo buurtinle waxay tilmaamaysaa buur iyo tin waa buurtii tinka lahayd waa buur uu ku yaalo hal geed oo keliya buurta geedkaasi ku yaal ayaa loogu magacdaro layidhi waa buurtii tinka lahayd buurtinle sidaas oo kale baar dheere waxaa ka baxa geedka la yidhaahdo geed baarka oo caanaha leh kolka la turqo geedka ayay ka soo daataan caano dhaya oo kuwa geela u dhadhanag marka ay dhanaanaanna waxaaba la sheegaa inay maandooriya isu bedelaan ceeri gaabo ceeri waa isha ceelka gaabana waa kii gaabnayd marka waa ceelkii gaabnaa ceeri inay ceelka tahay waxaad ku garan kartaan heesan geela ee odhanaysa soo codkaygana ceeriga ishiyo ceelka kama maqal oo ma caashaqin kolkaa ceeri gaabo waa ceelkii gaabnaa kismaayo wuxuu ka kooban yahay magacaasi laba eray oo kala kis iyo maanyo kis waa yaraan afka Soomaaliga maanyana waa biyaha marka gacan yaroo badda ka soo leexda ayaa magaca magaalada loogu magacdarayo waa badii yarayd bad yar buuhood haddaan soo qaadano waa buuhood balliga ayaa magaca lahaa intii aan laba magaalayno waa meeshii ciidda jilicsan lahayd boocame waa ceel loogu magacdaray boocda faraha badan ama geedka boocda oo halkaasi ka baxa bacaadweyna oo iska maanaysan tahayoo waa tii bacaadka weynayd ama bacaadka badnayd burco magaceedu ciid ayuu ka soo jeedaa oo waa burcooyin ciid ah oo isqabqabsaday ciid isku taal isku dhegdhigtay kolka dabayshu ay soo dhacdo oo isqabsata ayaa magacaasi uu tilmaamayaa burcooyin oo tii burcooyinka lahayd ama ciidda lahayd ereyga bakool macnihiisu waa didibka ama dhagaxa cad marka waa tii ciidda caddayd bayna waa madow ayay tilmaantayoo xitaa ninka madow bayle ayaa loo bixiyaa oo magaca bay isaguna cara madow ayuu tilmaamayaa bu'aale haddii la dhaho bu waa isha ceelka marka waa il bu'da haysa oo qulqulaysa waa tii isha biyaha lahayd buraanna waa buraanoo il biyo durdura leh ayaa magacu uu tilmaamaya buulo barde waa meel tuulo ah oo bardayaal ku yaalin magacii asalkiisu sidau ahaayo waa buulo berde berdayaal ayaa ku yaalay tuuladaas kolkay tuulada ahayd sida buulo xaawo oo kale buulashii tuuladii xaawo oo markii dambe loo bedelay beled xaawo tukaraq waa ceel ama tog durdura ku yaala oo ay tukayaashu ka cabi jireen oo meesha haatan magaaladu tahayna taan ka durugsan goday waxay tilmaamaysaa iyaduna dhul godan oo jooggiisu uu hooseeyo jabuuti waa laba eray oo isku dheganoo waa jab iyo buti waxaa lagu jabiyey waa jabkii butida ama caanaqubta ayaa halkaa lagu jabiyey taleex waa talax ereyga asalkiisu waana biyaha faraha badan waa ceel biyo badan kolkalka qaarna daranta ayaa talax nooc ka mida la dhahaayo waa ceelkii biyaha badnaa ama ceelkii daranta lahaa sidoo kale boorame iyana waxay tilmaamaysaa meel booraamo ama boholo inay lahayd dhoblena waa ciid adag oo dhooba ah ayaa ku badan dhulkaasoo waa tii dhoobada lahayd laasacaanood waa laaskii iyo caanihii waa laaskii kolkay xooluhu ka cabaan ay darari jireen ee caanaha ay ku bardin jireen way fara badan yihiin magacyada ismacneeya ee afka Soomaaligu haddaan soo qaadano carooley ama caroweyn magaca caro waa camuudda ama waa ciidda waa tii ciidda badnayd ayaa magacaasi uu tilmaamaya kolka la dhaho qoryooley ama qoryaale ama qoriley waa isku wada midoo dhir qalashay oo fara badan oo qoryaah oo xaabo laga dhigto ayaa meesha ku badnayd weeyey macnahu
god aalo haddaan soo qaadano magaca magaaladaasi waa godkii aalada. aaladu waa weylaha ayaa ka cabi jiray. marna aaladu waa geed yaroo cagaaran oo biyaha ka baxa. marka waa alaalo leedo alaalo waa tii godkii alaalada lahayd ama ay weyluhu ka cabi jireen. labada magacba uu qaadan karaa macnayaashaas. sidoo kale dhadhaab waa dhagxaan badan oo dhadhaab ah oo is haysata. waxaa la meenaa salaxley oo tii salaxyada badan lahayd. nugaal waa nugul oo biyaheeda ayaa dhow weeye macnuhu ay xambaarsan tahay. oogo waa dhulka jooggeedu sarreeyo. oogna waa saas oo kale oo meel sare ayay ku taal weeye. hawd waa dhulka hawdka ah ee kaymaha faraha badan ee awdan. soorna waa kayn oo mana ah oo biyaheedu ay yar yihiin. cayn waxay tilmaamaysaa dhul dhir badan. magaca xallin haddaan soo qaadano waa xallin waa tii xallinaysay waa biyo durdur ah. sidoo kale dureera iyana waa biyo durdur ah. markaan soo qaadano magaca kale ee soomaalida ee cadaado ama cadaadley geedka cadaadu inuu meesha ku badan yahay ayay tilmaamaysaa oo geedka loogu magac daray. cadale waa degmo ka tirsan Soomaaliya iyana macnaheedu waxa weeye geedka cadayga ah ayaa aad ugu badan oo tii cadayda lahayd. yubbe isaguna waa magac geed. magaalada yubbena dhulka ay ku taalo geedka yubbaha ayaa ku badnaa. sarmaayo iyaduna waxay sheegaysaa geedka sarmaanta ahi inuu aad uga baxo. boqsheenle waa magac muujinaya ceel il ah oo buq ah oo haddana sheeman ama qarsoon. waa ceelkii lahaa isha qarsoon. galooley marka la dhaha magaaladaasna waa meeshii galoolku geedka galoolka ahay ku badnaa. berdaale berdayaal badan buu lahaa. laase ceel berdaalena waa laasos waa ceel laasasa oo berdayaal ay ka baxaan. saaxo haddii la dhaho ama saaxdheer iyana waxay tilmaamaysaa meel ay biyuhu fadhiistaan. badhan iyo xudun ayaa ah laba magaalo magacyadood oo labaduba waxay tilmaamayaan dhexdhexaadnimo oo waa meeshii wax kala badhaysay ama xudunta ahayd. xiisna wuxuu ka soo jeedaa magacaasi mawjadaha badda ee isgala ee isku meeraysta. hablahana waa loo bixiyaa. qandala haddaan soo qaadano waa tii qandalka lahayd ama qandalley oo qoryo dhaadheer oo laysku tubay oo la gado oo laga iibin jiray doonyaha iyo ayay lahaydoo dhirta oodaas ama qoryahaas ayaa magacu ka soo jeedaa. haddaad maqashid xingalool ama ximan ama xin waa jeex ay biyuhu fadhiistaan oo galoolku ka baxo. xingalool waa xinkii jeex ay biyuhu fadhiisanayeen ee geedka galool ka baxayay. ximan haddii leedana waa jeexyadii biyuhu ay fadhiisanayeen. magaca leedo shalcaw oo magaalo ah. shal waa laagta. cawduna waa cawda laga sameeyo dermooyinka oo waa laagtii cawda lahayd. kuwaasi waxaynu ku soo qaadnay xagga deegaanka ama dhirta loogu magac daray dhul ka mid ah geyiga Soomaaliyeed. balan soo qaadano erayo kale oo ismacnaynaya oo afka Soomaaliga oo xagga dadka ku saabsan. boqor haddaan soo qaadano oo magaciisim ah ama hogaamiye dhaqameed waa boqol kii boqolka u dhigmayey. marna waa boqoro waa kii u dhexeeyey dadka ee isku xidhayey. garaad isaguna xagga caqliga ayuu ku saabsan yahayoo waa kii garashada lahaa oo waa magac hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida qaar ay la baxaan. ugaas ayaa la mid ahoo waa oog-aas ayuu ahaa asal ahaan eraygu. oogta ama colaadda xasarada ooganta kii daminayay weeye aasayay. marka waa nin nabadeed. nabadoonna oo iska macnaysan tahayoo waa kii nabadda ka shaqaynayay. beeldaate waa kii beesha hagayay ee hogaaminayay. magaca madaxweyne ee maanta caanka ah asalkiisu wuxuu ahaa madax u weyne. inta madaxda ah kii u weynaa weeye.
sidaas oo kale guddoomiye waa ka u guddoomiyaha ee go-aanka ugu dambaysa gaadha guddi ama maamul ama shir markaasi waa kii go-aanka ahaa ee wax guddoominayay isuduwe waa isku dubaride ninka isku dubaridaya howlaha maamulka maareeyana waa ka maareynaya ama ka jibakaana arrimaha sidaas oo kale kormeere waa nin dusha kala sola oo kor ka ilaaliya hadba meeshii arrimo ama maamul ay ka socdaan maamulana waa hage waa kii hagayay arrimaha oo maamulka howlaha hayay agaasime waa habeeye ama waa hanaaniye waa kii hagaajinayay ee agaasimaya arrimaha olole macnihiisu waa abaabul kaaliye waxa uu noqonayaa caawiye ama gacanyare la shaqeeya cid cayiman sidaas oo kale erayga qaraan waxa uu ka dhigan yahay ama macnihiisu yahay u doode amaba u qaybsane oo waa kii dadka u doodayay garsoorena sooriddu waa qaybin waa kii garta qaybinayay ama garta qaadayay taliye isagu waa iska macnaysan yahayoo waa xukume hogaamiyena waa kii hogaanka u ahaa meel wax marinayay wax meel mariye hogaamiye afhayeen isna afka ayuu hayaayoo waa kii u hadlayay markaasi way fara badan yihiin erayada afka soomaaliga ee ismacneeya haatanse waxaynu ku soo qaadnay barnaamijkeennan xagga dhulka iyo xagga magacyada maamulka ama hogaaminta qaybo kala gegedisanna barnaamijyadeena soo socda ayaynu hodannimada afkeenna ka muujin doonaa iyo sida afafka kale oo idil uu uga duwan yahay ee uu isu macneeyo haddii rabbi raalli ka noqdo waxaad kala socoteen warbaahinta Horufadhi Media intaynu mar kale kulmi doono gidigiinba waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu